السلام عليكم نور الدين فارح وكحد قدب إسلامك أرنكم معهن هل حد قدب ودور حد قدب يدن وحي كل مسادين مرء هو يدي عاي هو يدي السجد لشيء مرء أفلقادي وكحد قدبي مرء ستوسا أويرري مبدأ كمدة مبادئ إسلامك إيو مرء ستوسا أوغوري ماذي آيات قرآن إلى أوغاري إن حجابك وكتر مامو إنو يهي عادة عربي وآنو إسلامك قصينين شقنا أونان كلهين مدن ياليو مربوين مركا وحميشة كفهم كرنا إن نور الدين وحيسا أونانهين كيف أما قلت كدعي أو يهي حد قذب وحميشة كفهمينا إنو يهي وحو قصدي وحو كسو حساب تمي وحميشة كفهم كرنا أو معقولة إنان أفهنو إنو يهي وحو سو دياري أو رب إنو كمرن هبابيو بلشدة صوماليا كسو دبادا موقال أنفالا كجب حينينو أم أن تعليق كجب حينينو حد قذب يدي نور الدين فارح انت انا فالا بحنت اما تعليق غده وغلين نور الدين فارح وايو واكوما نور الدين فارح كومو يحيى اسغا نور الدين فارح حسن وكاتب صومالي يكتب باللغه الانجليزيه وقرا صومالي لكن لغه الانجليزيه wax ku qora sanadkii 1945 waxa la dhalay نور الدين فارح waxaana lagu dhalay koonfurta Soomaaliya caasimada koonfur galbeed magaalada Baydhabo hooyadii uu aflagaaday wixii geeriyootay sanadkii 1990 shakhsigan am muuqaalkan faala kaga bixinayno waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah qorayaasha ugu waaweyn casrigan ee luqadda Ingiriisiga wax ku qora sidoo kale buugaagtii uu qoray awgoodii waxa la guddoonsiiyay dhowr abaalgudyada caalamiga ah Nobel sanadkii 1998 wuxuu ku guuleystay ama lagu abaalmariyay jaa'izada Newstead ee suugaanta jaa'izadan ama abaalgudkan Newstead waa jaa'izada labaad ee ugu muhiimsan suugaanta kadib jaa'izada Nobel ee suugaanta intan kadib marraba inaan gudaha u sii galo intaas waa noloshiisa caadiga ahayd laakiin inakeena aan kala furnay bog kale ee noloshiisa muuqaalkaas oo aan wax yar kor soo daabanay waa shakhsigan uu ku sugan xarun la leeyahay waxa lagu ilaalinayaa dhaqanka Soomaaliya muuqaalkan hadii aan faala ka bixiyo ama hadii aan tacliijiyo marka hore shakhsiyaadka noocan ah ma ahan kuba dhaqan ilaaliya waa kuba dhaqanka haleeya waa kuba dhaqanka iyo saluuga Soomaalida burburiya hadalkan uu isaga ku hadlay waxaan ugu jawaabayaa aayad Qur'aan ah oo ku sugan juska 22aad suurada al-Ahzab aayada 59 قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي أما النبي الله قل له لأزواجك حاسسك وبناتك إيو قبلها أردشي إيو نساء المؤمنين إيو رق مؤمنين تأناقه أي قبل وحد كل هذا يدنين عليهن دشوذ هكو رارعيان دشوذ هكو دايان وهكو رارعيان من جلابيبهن جلابيبتوذ هكو رارعيان ذلك إن حجابك رارعيان وحرتان أي أدنى أولو أن يعرفنا إن لقرت أو فهموا إنت سيؤدو فلا يؤذين أو أنا لدب وكان الله إنت كذبنا إلهي وحويه أما أو هذي غفور رحيما مذن بالله فضن أو نحريز بدن وإلهي مدن يالي مربوين وحان هل كان كأركينا إنو ستوسا أويرري حجابك أو مبدأ كمت مبادئ إسلامك حجابك وحان كسيمي موضوع دمستيران أو أن هوري أسوق لي كانال كجرواقسي إن شاء الله لينكي موقالكاس وحان إذن سوء لغايا ديسكريبشنك iyo commentiga koobaad waa mowduuc aan dhowr dhinac u soo eegtay waan huba mowduucaas inuu xambaarsan yahay macluumaad badan oo ku saabsan xijaabka linkiga hoos ayaan idin soo dhigayaa qofkii u baahan inuu daabado meesha ka sii raaco insha Allah saaxiibayaal aan u soo laabano mowduucina shakhsigan xukunkiisa waxaan u daynaynaa culimada mudan kuna haboon xukuumadiisa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ma aaya Allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ku jeesaysan la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum Allah baa yiri tabaaraka wa ta'ala la ta'tadiru qad kafartum waxbaha cudur daaranina diinta waad ka baxdeen shaqul ma wadaadna ma ya iskale
الله واسكال رب الكون واسكال حكمك ساس ترادد حكم عد أو شرعي أو بنانك يا لنينك كوتشيس تشيسا دينتو كبحيا ونص القرآن معه مسألة قيل كرتا عيار قيل كرتا معه saan soobada aragnay shakhsigan wuxuu taagan yahay oo uu leeyahay hooyaday weligeed shuka ama xijaab ma xiran isagoo leh amaan isagoo isleh hooyada amaan ayaa wuxuu yiri hooyaday weligeed shuka ama xijaab ma xiran anika Umar ahaan waxaan dhihi karaa hooyadii wuu aflagaaday wuu caay ma amaanin laakiin isagoo hooyadii iyo hooyooyinka la mid ah cudurdaar bay leeyihiin waanu cudurdaareynaa cid wax u sheegtay maynan helin aqoonna maynan lahayn waanu cudurdaareynaa sidoo kale maadaama loo cudurdaaray waxay khilaafeen sharciga islaamka xijaabka hadeenan xiran waxay khilaafeen sharciga islaamka waana loo cudurdaaraya sababtuna saan soo sheegnay cid wax u sheegtay maynan helin iyaguna ka salfi aan ama shakhsi ahaan aqoon maynan u lahayn xijaabka saaxiibayaal hooyaday ma xijaaban guntiima ayay xirneed amaan ma ahan ee wacay laakiin in ay caay tahay waxa fahmi kara qof aqligiisu soo jeedo oo baraarugsan ma ahan qof aqligiisa dhintay oo waxba aan ka ogeyn mabaadiida islaamka ma oga waxa uu ku hadlay inay caay yihiin iyo inay amaan yihiin waxa kale ogaan kara qof soo jeedo oo baraarugsan خيراتك قلتينا وحاوي إلهي نعمتي شنو والعارك ويلكي كل بيجي يا قبضة ناس كذي يعني كلا قبضة ضد يا رجال معايا markay ogaato inuu indhihiisa meesha ku xiiseeyeen bay xiraysaa marka guntiinada iyo garbasaar baa saaraan jirtay awra ma ahayn marka annaga ma ahayn marka hadda zaki haduu maqdacan aan hadda soo daabanay shakhsigan wuxuu taagan yahay guntiimadu waa labis sharci ah oo ay shariicadu amartay waxaan filayaa inteena badan inaan naqaan oo aan fahmayno guntiimadu uu sheegayo marka ay gabadhu xirato waxaan dhihi karaa anika Umar ahaan waxaan dhihi karaa jirkeedu kala barbanaan ku yaala sidoo kale jirkeeda inta daboolana bay soo muuqata ima asturna waa sida aan dhihi karaa anika Umar ahaan fikirkeyga daawade shakhsigan wuxuu taagan yahay guntiimadu waa labis sharci ah guntiimada aan hadeer soo sheegayn aan soo qeexini waa labis sharci ah shariicada amartay wax adika dhaadi wax ka dhaani ma ka dhihi karaba intaas waxa igala yaab badneed oo aan aad u la yaabay wuxuu yiri dumarka guntiimada xiran oo aan asturnayn oo jirkoodu kala barbanaanka yaalo dumarka daabashadoodu in la fiiriyo jirkoodu waa nicmo ilaahi hadalkaana waxaan ugu jawaabayaa hadalka alle qaala tacaala waqul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim ويحفظوا فروجهم وقل له نبي الله للمؤمنين رج مؤمنين توحد كل لحظة يغضوا هرارعيان وهوس اللابان من أبصارهم أرجو ذا اللابان ويعني دمرك أجانب تعيين إيجن ويحفظوا صدوك لا حفظيان وها إلاليان فروجهم فرجيدو ذا مرك الله كلابتان دمرك أجانب تكأه وحأفض ذانيس إن إفرجوا ذا إلاليان مرك الإله وحجري وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل له نبي الله للمؤمنات قبلها أما هبلها مؤمناتك وحد كتر هذا أما تقول هذا يغضضن هلابان هرارعيان من أبصارهن يقولون قبلها إن هذا هرارعيان ويحفظن فروجهن فروج توذن هإلاليان مركا ميشان جوجنو شخص كان وحن أركينا ستوسا إن أجهر جماذي آيات قرآن إلهي وحوليه ولا يبدين زينتهن dumarka quruxdoodii muujin isagana wuxuu leeyahay sida aan soo aragnay halkii uu isaga dhalinta amri lahaa kubaanin lahaa dhalinyaro ka jooga uu wuxuu taagan yahay daabashada dumarka qaabani waa nicmo ilaahi subhanallah nuqtada kale baxay tahay wuxuu adeegsanayaa kelmad ceeb ah oo aan haboonin adeegsigeeda isaga wuxuu yiri gabadha naaskeedii kelmadaas waxa ka haboon sida inuu adeegsado horaadiyo soo jeedka dumarka waayo
akhlaaqda ama akhlaaqiyaadka ila ilaaliyo waa muhiim waa wax qof waliba muslim laga rabo inuu akhlaaqiyaadka ilaashado oo yacni inuu u fiirsado kelmadu adeegsanayo ma macquulba kelmad markaa adeegsanaysid isweydii ma jirtaa kelmad oo iyada la micno ah laakiin ka macquulsan oo ka habboon in la adeegsado haddii jirta taa adeegso laakiin haddaynan jirin ee baash iyada ku soo kooban tahay kelmadda un iska adeegsa dhib ma lahan laakiin hadda kelmad uu ku dhawaaqay waa gabadha naaskeedii waxaana ka habboon inuu adeegsado horaadiyo ama soo jeedka dumarka halkii uu kelmaddaas ku dhawaaqi lahaa shakhsigan mar kale ayuu hooyadii soo hadal qaaday wuxuu yidhi hooyadii 6 salaadood bay tukan jirtay waa wareey wuxuu garan waayey inta salaadood la tukado oo muslimiinta laga rabo waa wax cajiiba hooyadii 6 salaadood ayay tukan jirtay waa nin weyn waa qof qoraa ah buugaag qoray oo buugaagtiis jawaa'is lagu siiyey waa cajiib qof kale garan waayey inta salaadood laga rabo dadka muslimiinta ah wuxuu taagan yahay waxaan ahay qoraa weyn intaasoo hadiyada la isiiyey intaasoo yacni kii maxaa la dhihi jiray isagii jawaa'isa la isiiyey intaasoo abaalguddiya la isiiyey sheekh abaalguddiyadaada iyo yacni qoraanimadaduba wax micnaa kuma fadhido haddii yacni islaamka aad u xadgudubtid waxa iyo wax la midaba inaga agtanada qiimo kuma lahan qofka xagganada qiimo ku lah iyo isaga wax uu haysta noo qiimo yeelanayo waa qofka muslimka ah oo mabaadi'da islaamka ilaaliya laakiin sheekh adiga iyo mabaadi'daada aad haysatid waxba nooguma fadhiyaan inagu markii uu sidaas yiri dadkii meesha fadhiyay baabada qoslay waxayna ku dhaheen 5 baa la tukaday cajiib waa ninkii qoraaga ahaa oo intaasoo jawaa'is la siiyey 6 bay tukataa hooyadii uu taagaya subxaanallah hooyada islaamkii maalin waliba 6 bay tukan jirtay salaad 5 baa la ugu dambeyn daabade wiil iyo gabar baxaad tahay waxaan rabaa inaan adiga kula hadlo marka aan mowduucaas ka dhamaaday waxaan rabaa inaan adiga kula hadlo xogaar fursad isii waxaan ku leeyahay iska jir iska ilaali shakhsigan iyo kuwa la mid ahba yeynan ku kadinin yeynan ku qiyaamin yeynan jilaafa ku dhigin iska jir aad iyo aad iskaga ilaali oo raahyo yaryar ay ku dhaheen ha isku aminin iska jir marka qofkan qoraaga ah ay gaaladu abaalguddiyo ku siinayaan buugaagta uu qori awgii ma waxaad ka sugaysaa inuu isaga jihaysnaado oo diinta islaamka ku jihaysnaado ummadan u jihay diinta islaamka ma kula tahay macquul ma kula tahay in gaaladu ay dhiirigelinayaan qof muslim ah anika cumar ahaan ilama ahan gaaladu waxay dhiirigeliyaan oo abaalgudyo iyo jawaa'is basiyaan waa rag ay iyaga soo tababarteen oo ay caqliga ka fariisteen kadibna ay rabaan ragga inay ka dhigtaan hubkii ay kula dagaalami lahaayeen dalalka islaamiga oo ay raggaas ka soo jeedaan shakhsiyaadkaas ay soo tababarteen jeebkan u soo buuxiyeen waa shakhsiyaadka ama hubka ay kula dagaalamayaan dalalka ay ka soo kala jeedaan mudanayaal iyo marbooyin muhiimaddu waa inaan inaga wax barano oo aan baraarugno si ay indhaha inoogu furmaan oo aan uga feejignaano shakhsiyaadkan ay gaaladu soo dirsadeen jeebkana loo soo buuxiyey mowduucan waxaan jeclaystay inaan faala kaga bixiyo arrintan oo ah xaqiiqo qaraar aan la iska dhitiri karin waa anigoo cumar maxamed halkanina waa kanalka garwaaqsi daabadi mabaadiicda aan soo gudbiyey haddii ay ku qanciyeen ku soo biir kanalka sabskraib saar siina faafi kanaalka mar kale waa walaalkiina cumar maxamed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu